madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaaniyo oo saakaaroryadii hore ka soo kici timay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa wuxuu goor barqaha soo gaaray garoonka diyaaradaha ee Berbera International Airport waxaana madaxweynaha waftigiisa ku wehelinayay marwada koowaad ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xubno ka mid ah golihiisa wasiirada iyaguna ay waftiga ku soo dhaweeyeen madaarka caalamiga ee Berbera Airport mas'uuliyiinta ugu sarsareysay ee hay'adaha amaha dawladda ee gobolka Saaxil ay ugu horeeyaan mas'uuliyiinta gobolka Saaxil iyo kuwa degmada Berbera maareeyaasha ama kaydka shidaalka iyo dekedda caalamiga ee Berbera Port maamulayaasha kastamka iyo baanka dhexe ee magaalada Berbera salaadiin cuqaal iyo mas'uuliyiin kale oo aad u tiro badan isagoo madaxweynuhu salaan gacan qaad ah la dhexmaray dhammaan mas'uuliyiintii kala duwaneed ee ku soo dhaweysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera kadib markii ay soo gaadheen waftiga madaxweynuhu magaalada Berbera waxay si toos ah u qabteen xarunta ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland ee gobolka Saaxil halkaasi oo uu salaan sharaf kaga qaatay cutubyo kamid ah ciidamadaasi mudan madaxweyne waxa saantada u diyaar ah cutub ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland saldhigga Berbera mudan madaxweyne ku soo dhawow taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland sareeyo guud Axmed Aw Cismaan oo isagu salaan sharafta kadib ka hadlay xaruntaasi ayaa sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka qayb galayo tababar ay ciidamada ilaalada xeebaha ee wadanka Ingiriisku ay soo gabagabeynayaan ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland madaxweyne maanta waxa farxad weyn noo ah ciidanka ilaalada xeebaha ahaan inaad nagala soo qayb gashid xiritaanka tababarada sanadlaha ah ee ayna siiyaan ciidamada ka tirsan dalka Ingiriiska ee Royal Marineska sidoo kale waxa uu madaxweynuhu kormeer ku soo maray barxadda cusub ee lagu soo kordhinayo dekedda Berbera iyagoo ay ka socdaan hawlo lagu ballaarinayo laguna kordhinayo qaybo cusub oo la dhigi doono kontiinarada isagoo madaxweynuhu socod lug ah ku soo dhex maray soona indheeyay sida ay u socdaan hawlaha shaqo ee dekedda caalamiga ee Berbera Port dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay weelinayaan xubno ka mid ah golihiisa wasiirada iyo mas'uuliyiinta gobolka Saaxil iyo kuwa degmada Berbera maamulka dekedda caalamiga ee Berbera Port iyo mas'uuliyiin kale waxa ay fuuleen markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada ilaalada xeebaha ee wadanka Ingiriisku kaasi oo tababar loogu soo gabagabeynayay ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland iyagoo halkaasi kulamo kula yeeshay saraakiisha ugu sarsareysa markabkaasi iyo sidoo kale safiirka wadanka Ingiriiska u qaabilsan wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yunis iyo safiirka wadanka Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliland iyo sidoo kale kabtanka markabka ciidamada Marineska ee wadanka Ingiriiska oo iyagu kulankaasi ka hadlay ayaa ka waramay ahmiyadda uu tababar noocan oo kale ah u leeyahay ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland. Let me say on behalf of the government of Somaliland, on behalf of the president, thank you very much for inviting us to this event. ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isagu soo gabagabeeyay kulankaasi ayaa si weyn ugu mahadnaqay mas'uuliyiinta markabka ciidamada Marineska ee wadanka Ingiriiska isagoo uga mahadnaqay tababarkan ay siiyeen ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland ugu mahadnaqayaa madaxda markabkan iyo safaaradda Ingiriiska markabkan warshaqeynta iyo ilaalinta tababarka ay siiyaan ciidankeena xeebta iyo ilaalinta nabadgelyada ee badeena waa xiriir cilaaqaad wanaagsan ayaa naga dhaxeeya British iyo taariikh badan oo ina dhex taala oo aynu ku soo koray ayaana dhex yaala waana jecelahay inaanu ku xidhiidhino xiriirkaas uu sii kordho sii weynaado maalinta ka dambeysay si kordho kaasi wax tar weyn labada dhinac bayna noqon kara insha Allah taala waxaan rajeynayaa inuu noqdo kii faa'iido wax u teeno tar mar kale waxaan maadnaq balaadna u jeedinayaa staafka iyo madaxda markabkan Khalid Xasan Nuur telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Berbera